as you can hear, their shots fired into the... The Russian military has begun a brutal assault on the people of Ukraine without provocation, without justification. kulanti wanaagsan daawadayaal meel kastoo dunida ka joogtaan waa barnaamijyadii aad halkaan oga barateen Brit Somali TV dagaalkii Ruushka iyo Ukraine u dhaxeeyay ayaa maalintii labaad galay waji cusub ayuu yeeshay Ukraine ayaa sheeganaysa guulo Ruushka yiri waxaas waxba kama jiraan NATO ayaa lagu soo warramay inay isku dhaxyaacsan tahay madaxweynaha Mareykanka ilaa haatan wuxuu ka dhamaan laayahay cunaqabatayn ayaanu saaraynaa hadday ahaan lahayd kambaniyada waaweyn ee Ruushka iyo dawladda Ruushka laftigeedaba inuu cunaqabatayn saari doono cunaqabatayntaas ma u muuqata mid Ruushka jilcin karta oo u dhaga nuglaan karo Ruushka ayaa dhagaha ka furaystay waxaanu idiin haynaa muuqaaladii ugu dambeeyay iyo wararkii ugu dambeeyay toos ayaad la socotaan barnaamijkan waxaadna kaga qayb qaadan kartaan khadka taleefanka iyo waliba komanka la'aantiin abaar weeye caawa ayaana lagu kala baxaya halkan waxaana arki doonaa haddii Allah awoodda la yiraahdo meeshay caga dhigato kulligiina waan idin soo dhaweynaynaa meesha aad naga daawanaysaan fadlan nala wadaaga maxaa yeelay waanu jeclaynaa in ogaano meelaha aad dunida ka joogtaan ilaa haatan Jarmalka iyo jaamac baa ii muuqda haddaba si aanu barnaamijkan waxooga la socono muuqaalada iga dambeeya aad arkaysaan waa muuqaaladii ugu dambeeyay shacabka Ukraine ayaa u qaxaya dalka Poland iyo wadamada kale ee xuduudka uu la leeyahay kumanaan kun baa saacad walba dhaqaaqaya 1945 dagaalkii labaad ee adduunka markuu soo gabagaboobay oo laga joogo 75 sano ka hor ayaa ugu dambeysay inay qaxaan waxay TV-yada ka daawan jireen buubuutan ku yiri naga hooya yaa khadka ku jiro oo barnaamijka caawiga la qayb qaadanaya yaa kale waa kan injineer Abdidoon oo toos khadka ugu jira injineer soo dhaw waa mahadsantahay Cabdixaafid adiga iyo tiimkaagaba iyo British Somali TV runtii aad iyo aad baan kaaga mahad celinayaa sida wanaagsan ee dadka maad ugu soo gudbinayso macluumaadka hadday tahay xagga siyaasadda hadday tahay xagga ijtimaaciga iyo hadday tahay magaranaysaa xagga dalkii hooyaba aad baan ugu mahadsantahay walaalayaal waxagaag waxaan la soconaa xaaladdu inay aad u qaraaraatay dagaalkuna maalintii labaad uu galay waxaa lagu soo warramayaa boqolaal inay dhinteen LBC radioga uu qoraya daqiiqadii u dambeeyay dalka Ukraine oo sheegay dhinteen oo intooda badan ay shicib yihiin meesha Ruushku uu leeyahay shicibka anagu waa ka caaganaho ma weerarno xerooyin military iyo barag gaar ayaanu bartilmaameysanaynaa xagee wax maraya aad iyo aad mahadsantahay Cabdixaafid mar kale runtii dagaalku waa bilow waa maalintii labaad sida muuqata ilaa hadda farsamada Ruushka qaabka uu rabo dagaalka inuu ugu guuleysto waxa muuqata waa midoo inuu mataqaanaa oo cirka duqeymo ka geysto inuu jilciyo madaxa ka garaaco dhaawaco markaas ciidamada lugta la geliyo sida muuqata waxa weeye ciidamada hadda waa ciidamo la soo daadiyay inta badan oo commandosa ciidamada aad iyo aad u tababaran weeye nimanka raaca hore gelaya oo hatta meelaha qaar waxa la yiraahdaa barashuudiyo ku soo degeen ciidankii lugta wali si toos u wada dhaqaaqay inkastoo hadda waqtiyada ugu dambeeyay la sheegayo in xaggan iyo waddanka la yiraahdo Belarus ay ka soo ruqaansadeen raxan ayagoo u socda taangiyada Ruushka oo mataqaana raba inay hareereeyaan caasimadda Kiev in labada dhinacba laga soo galo qaarna cirka looga soo dejiyo dagaalku waa bilow wararka warar laba xaqiijin karana maaha wararka hadda la sheegayo laakiin qaxi waa bilowday dhimashada dhaawac waa jirtaa labada dhinacba Ukraine waxay soo sheegayaan iyagu inay istaafaceen in mataqaana gooba uu ciidamada Ruushku qabsadeen inay dib uga riixeen bay sheegayaan waxaad garanaysaa marka waxa lagu dagaalamaya waa Ukraine dhexdeeda xadki waa la isla soo dhaafay saakay waxa lagu arkay baa leeyahay buuto Ruush ayaa waxa lagu arkay qaybta waqooyi ee magaalada Kiev xaafadda Bolo ayagoo ma garanaysaa halka ka soo galay hadallada ugu qatarsan waxay ahaayeen wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka maanta wuu hadlay wuxuu sheegay xaqiijiyay ujeedka Ruushka inaysan ahayn Ukraine qabsadaan ujeedka ugu weyn ee Ruushka u socda waxay tahay waa mid in Ukraine la edbiyo oo mataqaanaa qoladan casaabada ay u yaqaanaan Ruushka qola waxa jirta Ukraine sanadii ugu dambeeyay haysatay oo aad iyo aad Ruush nacayb xagga luqadda hadday tahay
xagga mataqaanaa dadkiiyo xataa luuqadii ruushka inay joojiyeen oo aan la yidhahdo iskuullada laguma dhigi karo oo dadkii maaragtay la yidhaahdo afkaan maaragtay bolishka ay ukrainka ku wada hadlaan in dadka la baro marka ololo ballaaran oo waxa ukrain qaaday ruushka aad uga soo horjeeda cabdixaafidow waxaa jirta runtii dagaalka waxyaabaha soo dejiya waxaa ka mid ah waddanka ukrain ruushku ka mid ahaan jiray weligiiba waa waddan ay mataqaanaa bahwadaag ahaayeenoo xagga diinta waa isku hal kaniisad bay lahaayeen xagga ma garanaysaa dhaqanka xagga dhaqaalaha xilligii soviet unionka 70 sane ee mataqaanaa ay soviet unionku jiray itixaadkii sovietiga waxa la dhihi jiray ay jireen waxaa jirtay meelaha ugu badan ee wax laga qabtay ee warshada hadday noqoto wax soo saar hadday noqoto xagga dhuxusha hadday noqoto aad iyo aad looga shaqeeya ukraine bay ahayd aad bay ukrainiinta uga faa'iideen xukunka dadka haysta ukraine bay ahaayeen inta badan raggii soo maamula soviet unionka marka laga reebo stalin oo georgian ahaa iyo marka laga reebo mataqaanaa lenin oo ruush ahaa inta badan ukrainiin bay ahayd ragga waddanka maamulayay marka waxaa iyagoo xiriir fiican la leh ruushka ayay reer galbeedka xiriir fiican la yeelan karaan waxaa nacaybka inay bulshada ay ku dhex aruurayaan wax runtii ruushka aad uga daadegi waaye weeye nimanku hadday doonaan ruushkana waa waddan weyn waa waddan wax kusoo kordhinaya suuq fiican leh dhaqaale kusoo kordhin kara saliidda iyo ay ka qaadan jireen waliba si raqiis ay beriga hore uga qaadan jireen hadda waayada wax la isqabto buu ku qaaliyey maaha marka bilaash bay uga heli kareen iyagoo xiriir fiican la leh ruushka ayay European Unionkana ku xirmi kareen oo xiriir fiican la yeelan kareen laakiin kooxda qabsatay Ukraine xadkii bay ka saareen taas ayaa keentay ruushku inay ku dhiiradaan inay maanta ay maaragtay weeraraan oo qasab in loo eego waa gartay injineer dabcan waxaanu ognahay ruushku inuu Ukraine oo kaliya inuu weeraro aysan kaliya ka haynay arrin intaa ka baaxad weyn inuu leeyahay iyo gool fog oo ah in dib loo soo celiyo awooddii wiiqantay Soviyetkii barisamaadkii inuu soo celiyo Putin uu rabo inuu ka tago ruushku awood leh oo sidaa markaa uga tago taariikh aan horay u dhicinin intii la burburiyey oo burburay Soviyetkii hore laakiin waxaan rabaa marka hore dadweynahana daawanaya inaanu tusno muuqaaladii ugu dambeeyey oo Ukraine laga soo duubay kumanaan kun ayaa saacad walba ka haya Poland ayaa oo jaarla ah ayaa albaabada u furtay oo sugaysa dadkan inay soo dhaweyso halkaas oo ay maalin saacad walba sii qaxayaan bal muuqaaladan ila fiiri haddii aad idin suurtagal tahay dabcan waxaan jeclahay arki kartaan waa kan muuqaalkii ugu dambeeyey ee laga soo duubay And as you can hear, there are shots fired into the air at that train station in the Ukrainian capital as people try in their hundreds to board trains leaving Kiev, ostensibly for the west. As we see at the moment, there is talk that people are trying to head to Lviv and even beyond. The Polish certainly preparing themselves for a refugee influx across their border. In fact, reports saying that refugees from Ukraine and indeed other countries continuing to arrive at a border crossing at Medica. وحقاق waxaad arkaysaan muuqaalkii ugu dambeeyey Sky TV-gu soo duubay oo aad arkaysaan kumanaan qaxaya dadka qaarkood xasuusta markii qaxid dalkeena uu ka bilowday wuxuu xasuusin karaa 19 markii la qaxayay iyo ka hor la qaxayay 88 iyo markii dagaalku sokay u bilowday waxaana muuqata dadkaanu inaysan horay ula qabsanin qaxan iyo dhibaatadan waa maxay waxaad isleedahay injineer xaaladda ay ku sugan yihiin markaad qiimaysid 7 sano ka hor baa ugu dambeysay Yurub inay qaxdo oo dagaal ay military ay gasho maanta gurigeedii uu ka dhex shiday xaalkuwaase runtii Ukraine waa runta dagaalkii labaad baa ugu dambeysay inkastoo ay Ukraine ka mid ahayd wadamada dagaalka labaad aad u afeeyay Jarmalku u burburiyey dhammaan ma garanaysaa inta qabsaday weliba si xun la yeelay bay ka mid ahaayeen maanta inay arrinta tani ku dhacdaan arrin meesha runtii qabanaysa ma aha laakiin xaafido waxaa la rabaa inaan fahamno aan daawadayaashana aan u sharaxno waddanka Ukraine sacabka loo tumaya halka reer galbeedka sacabka looga tumaya dadka inay qaxaan waa lagu qasbaya orane waa loogu dhiirigelinayaa eraga saxda waa lagu dhiirigelinayaa
albaabada idin furan adinkaan idinla jirnaa adinkaan idin rabnaa macnaha falsafada nacayb ruushka ah oo maaragtay laga dhex abuuray shucuubtan weligoodba wada noolaa walaalaha ka ahaa dhinac walbaba hataa asliib ahaan hataa dadku waa isku dado waa slaafs bay isku yihiin ayaga iyo ruushku in ma garanaysaa nacaybka ruushka la fidiyo waxay ka mid tahay istiraatiijiyada wadamada reer galbeedka qaarkood ay runtii muddana ku soo wadeen haddana ay rabaan maaragtay in ruushka gebigiisaba laga taqaluso ruushku waa wadan weyn waa wadan aad iyo aad u dhaqaalo badan leh waa wadan hadduu helo mataqaanaa xasilooni siyaasadeed runtii chinaha iyo la tartami kara iyo maraykanka xagga dhaqaalaha kala tartami kara laakiin waxaa jirta wadamadii 70 sano Soviet Unionka ku jiray saddex dal markii laga reebo oo saddex dal yar marka Baltic ku yaala Letland iyo Estonia iyo saddexaas dal marka laga reebo intii hore oo dhani wali way isku xiran tahay wadamay kala noqdeen laakiin waa la isku xiran yahay dhaqaalaha isugu xiran isku socodka isugu xiran dhaqanka isugu xiran حتى kuwa muslimiinta ah aad bay ugu xiran yihiin mataqaanaa Kazakhstan oo kale marka soo qaato Azerbaijan mataqaanaa iyo kuwa wadamada kale oo yaryar oo dhan dibdi way ku xiran yihiin weli ruushka colaadan ay Ukraine 20 sano ugu dambeeyay la abuuray runtii aan iraahdo waa la abuuray ma aha mid runtii ka turjumaysa dadku waxay isku ahaayeen ruushkuna wuxuu u dareensan yahay sida muuqata Ukraine in loo bahaleeyay inay dhibaato ku tahay oo cadow u soo hogaaminayso runtii aan baahida loo qabin marka waa taas tan iyada hadda isticmaalaya laba eray baa maanta aad iyo aad ruushka looga isticmaalayay oo ah in naasinimada la burburiyo naasifsiidu wax la yiraahdo oo macnaheedu yahay in koox naazi ah naasi waxa loo yaqaan national socialist Hitler hogaaminaya xisbiga Hitler hogaaminaya iyo naasi la jiray marka naasiyiinta meesha laga sifeeyo marka naasiyiinta la sifeeyo iyo kooxaha argagixisada oo labada erday isticmaal iyo kooxaha argagixisada marka meesha laga sifeeyo Ukraine xalaala ayaa mataqaanaa meesha uga tagaynaa oo dalkooda maamusha marka ujeedada ugu weyn waxa weeye ma aha Soviet Unionkii inay isku xirraadaan ayuu ruushku rabaa meeshana uu oday ka ahaado oo loo qasbaa inuu odaygii meesha yahay laakiin iyagoo wadamada kalena xiriir la leh in ay runtii iyagu dad isxiga ay noqdaan waa siyaasadda ruushka sida ay ku sugan tahay aan ka dhexgale taas oo fartiin toos u diraysa reer galbeedka oo aan raalli marnaba ka noqonaynin in uu awoodiisii soo celiyo uuna isku xiro dadka deegaanka la degan oo dhan oo mar kale uu Putin uu sameeyo inuu isku xirkaa sameeyo wadamadaas sidee bay uga jawaabayaan baad isleedahay ama uga falcelin karaan in uu Putin arrintaa ku guuleysto oo ah waxa uu raadinayo ee Ukraine ba ka weyn runtii wuu ku guuleysan karaa laakiin shaqo badan iyo hawl badan baa ka horeysa oo ah in mataqaanaa dhaqaalihii ruushka dib loo yagleelo ruushka dhaqaalihiisu aad u jilicsan yahay aad buuna u liitaa waxaana keenaya siyaasadda oo aan deganayn siyaasadda ruushka hadda waayahan dambe Putin wuu soo dejiyo oo runtii fursado badan uu abuuray dib u dhis fara badan marka Sochi iyo aad aragto gobollada qaar sida maaragtay shaqada laga qabtay runtii shaqooyin badan buu ka qabtay xiriir fiicanna wuxuu la sameeyay wadamo maaragtay reer galbeedka Jarmalku kow ka yahay Jarmalka dhaqaalaha Jarmalku wuxuu ku xiran yahay ruushku ku xiran yahay ma aha kaliya xagga enerjiga laakiin mashiinanka iyo electroniga oo Jarmalku sameeyo aad ugu casri u ah iyo isgaarsiinta intaba ruushka ka faa'iideysta meesha loo beec geeyo waxaa jira xataa qadad tareena ah oo la sameeyay oo ka baxay inta Berlin ka baxa oo kaliya ah export ah Berlin ka baxsa Pittsburgh taga marka oo machines ah kaliya mashiinada iyo qalabka casriga ah maanta ruushku aad buu u gataa oo Jarmalku uga gataa marka taas waxay hadda culays iyo dhibaato weyn ku tahay wadamadii reer Yurub oo dagaal cusub loogu gacan haatinayo runtii inkastoo kuwa badan ay madaxa ka ligligeen oo maartay diidmo ay kala hor yimaadeen laakiin hadda afku weli waxaan isleeyahay waan isla soconnaa meel baan uga soo wada jeednaa cunaqabatayn baan samaynaynaa taasu laakiin waa afka baadkiisa waayahay daawadayaal waxaa noo soo socda muuqaalkii u dambeeyey ee Joe Biden xalayta markuu hadlay iyo hadalladuu yidhi afkiisa ma aysan soo marinin cudud military baanu ruushka waxaa qabanaynaa cunaqabatayn ayaanu ku samaynaynaa ayuu leeyahay cunaqabatayntaasu ilaa haatan ma muuqata in uu ruushka ay ku jilci karo oo arrintaa u dhaga nugul yahay Mr. Putin dhagaha ayuu ka furaystay
warbixintaas ayaa noo soo muuqaalkaas ayaa noo soo socda idinka khadka teleefanada ayaan idiin furaynaa dhalinyaro fara badan ayaa joogta oo wax ka barata iyo waalidiin fara ku tirisa sida lai sheegay Ukraine haddii aad Ukraine joogtid nambarka hoos ku yaala nagala soo xiriir si aan u ogaano xaaladiina waxaa kaloo jirta cutub ka tirsan ciidanka militariga Ukraine oo magac Soomaaliyeed wata war maxay ahaayeen kuwaas qaybaha dambe ayaad ku maqli doontaan injineerka nooga dhici doona oo il gaara ku hayay waa yahay injineer haddii aanu eegno ninka la yiraahdo Biden جماعة ويلكم نبتن داون ستريت هايستا بوريس جونسون كل جود وحي ليهين وحنو دونينا روشكو وحو سمينيا وخلط دقال بوغليي ليغا يو دادنيا اي ليهين afkooda lagama hayo inay yiraahdaan dagaalkan ka qayb qaadanayna because NATO way kamid yihiin Ukraine NATO kamid ma ahan ninkan in lagu degdegi karo sahlan ma ahan sida u akhrida runtii wadamada ugu hadalka kulul waa ingiriiska iyo maraykanku inkastoo Biden dhowr jeer buu ku celceliyay anagu meeshaas dagaal uguma soconno waxa ka duwan hadalka ka imaanaya ma garanaysaa Downing halkii number 10 ka imaanaya ayaa ka duwan waan taageeraynaa waan caawinaa hub inay geeriyaan maanta baarlamaanka House of Commons ka dooda dhowr jeer baa lagu soo qaaday oo meeshaas inaan hub u dusinayno fursado badan aan haysano wax ku geyno runtii waxaad u malaysaa ingiriisku inuu aad ugu dhiiranayo inuu xisadda dhegka isku shareerto in ma garanaysaa arrintaasu ay maaragtay waan aysan meesha imaanin cabdixafid waxaan rabaa inaan daawadayaasheeda qiimaha iyo qaayaha leh la socodsiiyo ruushku maantay wuu ku baaqay wuxuu yidhi wadaxaajood waa la gelaynaa Ukraine inaanay sii soconaynin in ma garanaysaa laakiin yaa way cidda taas way tan hadalku ka taagan yahay ma aha Zelensky iyo kooxdan hadda ninka shaaciroolaha Zelensky leeyahay iyo kooxdan kale maaragtay haddeertaan Kiev ka talisa ma aha nimanka la doonayo in la xaajoodo war kale ka soo baxay Moscow wuxuu sheegayaa Putin wuxuu ku dhiirigeliyay dadka Ukrainiinta ah inay daayahooda ka tashtaan iskana cayriyaan waxa uu ku tilmaamay yuntada haysata ma garanaysaa dalka bohosha ku ridaysa inay iska qabtaan aayahoodana ka tashtaan ruushkuna uu la garab istaagayo taageero iyo wax alla waxay u baahdaan in ma garanaysaa ay ka taqalusaan ay dalkoodana ayagu la wareegaan marka xisaddu waa kacsan tahay cirkaasay maraysaa waa ognahay arrinta heshiiska ku saabsan oo Putin soo dhaweeyay waxaan ognahay Putin uusan kalsooni ku qaban reer galbeedka madaxweynaha Belarus ayaa halkan gool ka ciyaari kara ayaa la leeyahay dadka qaarna waxay leeyihiin Putin wiilkiisii weeye kuma kalsoonin yaa ka qayb qaadanaya wada hadalladan maadaama uusan ruushku uusan raalli ka ahayn uusan aaminsaneyn kalsooni ku qabinin maraykanka iyo ingiriiska iyo xulafadooda aad iyo aad anigu u malayn maayo wasaad adiguba u dhigtay in maaragtay oo Putin wadaxaajood reer Yurub ay lu kuleeyeen uu la galayo malayn maayo wadaxaajoodka oo Putin ka hadlaya waa wadaxaajood dadka Ukrainiinta uu la galayo siyaasiyiinta Ukrainiinta ah ee aan ahayn kooxdan hadda xukunka joogta inuu wadaxaajood inuu la galan rabo oo ka mid tahay matalan qoladan Donbass horeba u haysatay maaragtay Luhansk iyo Donetsk haystay inuu labadaas kooxood uu doonayo ma garanaysaa inay hormood ka noqdaan dhex galaan waa Ukrainiin ayaga laftooda ruush ma inay arrinta maaragtay la ruusheeyo oo qaabka ruushka gudihiisa iyo Ukraine dhexdeeda waan laga abuuro waan cusub la abuuro weeye hadalkaasaan maaragtay oo Putin u dhigayo ma aha mid maaragtay wada hadal dibadda uu ka imaanaya ma aha maanta qoriga hadda ayaa dhawaaqaya qoriga dhuudsa ninka haystaana waa ruushka ma aha cid kale ma aha marka heer miska xataa lagu wada hadlayo iyo waxa miiska la keenayo ninka go'aaminayo waa Putin marka asaga ayaa abuuri doona sida hadalkiisa ka muuqata cidda uu la xaajoon lahaa asaga ayaa jeebka kala soo bixi doona taasna doona haddii heshiiskii hore hadda ka hor saxiixay uu suurtagalo oo ahaa ciidamada NATO in meesha laga saaro Ukraine aan lagu biirinin aysan ku biirinin NATO ruushka ma laga yaabaa inuu dib u dego yiraahdo waxyaalahan rabay baa ii suurtagalay iyo dhinaca kale haddii laga eego inuu asagu calling card-ka haysto uu leeyahay sidaanaan doonaya haddiinaan yeelina Ukraine baan qabsanayaa reer galbeedku ayagu see u arkayaan mayse wajiga wax ku haya laftigooda reer galbeedku choice male aan ahayn qabateen baa saaraynaa maanta choiceka fiiri baasha Soomaalidu waxay tiraahdaa talo waa maraadan hayn waa maraadan gaari karin iyo maraadan ma garanaysaa taladeeda bahayba marka
waa marada gaari karin marka maanta reer galbeedku taladu gacantooda kuma jirto mar baa jirtay ay taladu gacantooda ku jirtay oo ruushku baryayuu lahaa ma garanaysaa wadamadan iyo ciidamadan naaftada aad soo wadaan naga celiyo naga joojiye uu lahaa soomaad garan marka way garan kari waayeen maalintaas maanta waxay taaganta marayna gaaraynin ma gaarayaanoo rasaas baa dhacaysa dagaal kulul baa socda waxaa la sheegayaa ciidamada mataqaanaa sida qaasaska u tababaran ee ruushku inay hadda gooba ku degayaan baa la sheegayaa cirka kaga soo degayaan waa socotaa badda iyo cirkaba kasoo dhacaysa way socotaa ma garanaysaa maanta ma laha choice damba ma jiro choiceka keliya jira waxay tahay wax cusub in laga dhex abuuro ka dhex dhalato ukraine dhexdeeda oo ukraine mataqaan lala hadli karo oo ruushku meesha kasoo dhex saaro ukraine iyo ruushkana loo kala turjumi maayo waa dad mataqaanaa si fiican isu yaqaana laakiin xisad laga shaqeeyay in badan ba laga shaqeynayay ukraine keliyana maahe wadamo badan oo ay mataqaanaa kamid tahay georgia lafteedu kamid tahay ayaa saas baa hadda kahor lagu soo basbaaseeyo ruushka lagu soo diray marka haddaan ku fiirsatana cabdixaafidow waxaanu dal bay ahaan jireen hal dal bay ahayn 70 sano wax yar laba generation baa isku bedelay oo aan wax kalaba garanaynba ma garanaysaa marka in caqabad noocan oo kale la dhex dhigo siyaasadaysan arrintaanu waa arrin siyaasadaysan weeye arrin dhaqaale maaha dagaalku dagaal dhaqaale maaha dagaalku dagaal waxa weeye waa arrin siyaasadeed waa arrin mataqaanaa geopolitics ah la doonayo ruushku in maarata meel cidlaa lasoo istaajiyo baalasha laga rifo runtii waxa hadda ay reer galbeedku wadeen waa baalalka rif dhinaca kale markaan eegto ruushku isagoo tacbaan ahaa haddana wadan dimuqraadiya oo si xorriyada laysu doorto maaha wadan layscaburiyo putin waa dictator madaxa ah cid alla cidda kasoo horjeedana wuu dilaa oo xataa kuwii kusoo cararay buu kaga daba yimid nin saa dadka ku cafiya maaha wax yar waxaan rabi lahaa ninka la yidhahda putin horta inaan wax yar bal dadka u iftiimiyo putin waa kuma putin waxa weeye nin military buu ahaa corneyl buu ka gaaray darajada militariga wuxuu lahaa loo tababaray ciidankii sirdoonka ee KGB da la dhihi jiray ayaa loo tababaray KGB da ruushka waa ciidanka u dhigmay CIA da u dhigmay oo kale weeye ciidamadaasaa loo tababaray jarmalkaa loo soo bedelay jarmalka bari magaalada Dresden la yiraahdo oo magaalooyinka ugu waaweyn Saxon ugu waaweyn kamid ah ayuu saldhigiisu ahaa halkaas ayuu jarmalka ka maamulayay iyo reer galbeed waxa ka dhacaya iyo xuuraansiga halkaas ayuu ka shaqaynayay ilaa iyo burburkii isbroga oo burburay halka ayuu joogay afjarbalka si fiican buu ugu hadlaa weliba si aan dialect lahayn buu ugu hadlaa aad u wanaagsan dadka waa nin mataqaana aad iyo aad waaye arag u ah waa nin mataqaana xirfad badan leh aqoontiisu fiican tahay markii Soviet burburana St. Petersburg buu madax ka noqday ilaa iyo mataqaana uu yarsi soo kaxaystay oo mataqaana ka soo qayb galiyay xukunka qayb ka soo galiyay halkaas kaga soo dhisay isla markiiba kor uga baxay iyagoo dhanba marka nin sahlan ma aha Putin oo nin fiicanna maaha oo waa nin fiican lama dhihi karo laakiin waa nin adag waa nin dictator oo gacan adag gacan birana dalka ku haya haddaysan asaga ahayna waxaa laga yaabaa Russia way furfurmina kala daadan lahayd marka wuxuu isku dayayaa saad hore adigoo laftaa u sheegtay inuu isku celiyo maahe kuwii kale ka go'ay Soviet Union inaanay ka fogaan aad iyo aad haatan waxaan eegaynaa daawadayaal khadadka telefoonina oo idin jeednaa inaad soo garaacaysaan waa ku mahadsantihiin iyo daawashadiinaba haatan waxaan eegaynaa madaxweynaha maraykanka Biden khudbadiisii u dambeysay uu arrintan kaga hadlayay iyo waxa uu yiri daawasho wacan. The Russian military has begun a brutal assault on the people of Ukraine without provocation, without justification, without necessity. This is a premeditated attack. Vladimir Putin has been planning this for months, as we've been saying all along. He moved more than 175,000 troops, military equipment, and positions along the Ukrainian border. He rejected every good faith effort the United States and our allies and partners made to address our mutual security concerns through dialogue to avoid needless conflict and avert human suffering. For weeks, we have been warning that this would happen. And now it's unfolding largely as we predicted. We've been transparent with the world.
We've shared declassified evidence about Russia's plans and cyber attacks and false pretexts so that there could be no confusion or cover-up about what Putin was doing. Putin is the aggressor. Putin chose this war, and now he and his country will bear the consequences. Right. What consequences ayuu ka hadlayaa? Waa maxay ciqaabta amase tallaabada uu Maraykanku qaadi karo oo aan ahayn tan iyo intii ay dagaalku bilowday cunaqabatayn baanu ku qabanaynaa Swift oo ah nidaamka lacagaha lagu kala xawilo ee caalamka uu ku dhaqmo ayaan ka joojinaynaa. Taas oo aan ognahay qaar ka tirsan reer Yurub in ay ayagu laftigoodu ka biyo diideen. Maraykanka waagaa ku bariyay Soomaaliya lama oran karo. aad iyo aad cabdixaafid waxyaabaha aan la yaabaa waxay tahay aad iyo aad maaragtay markaan dib u fiiriyo 2003 markii Ciraaq la weerarayay markii dowladaha kale Maraykanku uu weerarayo iyadoo waliba aysan dowladahaas asaga soo weerarin dhibaato u geysan may oran jirin maaragtay annaga dembiga leh ama waxaan taana wax weerarna ama annaga dhibaato geysan marka waxaad arkaysaa double standardka annagu waxaan doonaa samaynaa laakiin cidii kale wax samaysa waa ka hortegaynaa waa mataqaanaa waa diidaynaa su-aashaada haddaan dib ugu soo noqdo maxay ka samayn karayaan waa su-aal aad iyo aad u muhiim u ah runtii waxyaabo badan bay samayn karaan haddaan xoogaa yar sharaxo waa midoo waxay samayn karayaan inay durbaan tumaan caalamka nimankan anglo-saxonka waxaa u sahlan inay caalamka inta badanba ay dhinacooda soo marsadaan taas waxay samayn karaan xagga dhaqaalaha dunida carabta ayay mataqaanaa waxa xiriirkaas dhaqaalu leeyahay kala dagaalami karaan caalamka oo dhan bay meelo badan kala dagaalami karaan taas waa qodob dagaal siyaasadeed inay ku qaadaan qodob iyo dagaal dhaqaale qodobka labaad waxa weeye dagaalka inay ku daba dheerayaan bay isku dayi karaan waxay samayn karaan inay lagu abuuro jabhado aan dhammaanin waxaan maqlayay hadda ma garanaysaa ingiriisku wuxuu diyaar garaynayaa in dowladda ka soo carartay Ukraine halkaas saldhig looga dhigo oo halkan inta saldhig looga dhigo telefishiinaad badan loo sameeyo idaacado loo sameeyo platform ay maaragtay waxay rabaan Ukraine kaga mataqaanaa ka gaarsiin karaan loo sameeyo loo abuuro dhaqaalo loo abuuro marka waxyaabo badan ay dhibaato ay geysan karaan hub baa tuugo lagu gelin karaa jabhadda lagu hubeeyo ayaa hid aan ran ah duurka ku jirta lacag la siinayo dhaqaalo lagu mataqaanaa la biilayo waxyaabahaas oo dhan way samayn karayaan wayna samaynayaan dabcan oo hadda markaad dhegaysato House of Commons dooda ka socota maanta oo kale runtii ujeedada halkaas u socotaa baasho su-aasha meesha haddaba taagan waxay tahay dowladaha ma garanaysaa waaweyn ee reer Yurub cayaartaas wax ma ka cayaari doonaan gitaarka ma la qaraaci doonaan nimankan anglo-saxonka anigu u malayn maayo khaasatan talyaaniga jarmalka haddii ilaahay dhinkada faransiiska wadamadaasi u malayn maayo iyo wadamada u dhow mataqaanaa ruushka u dhow sida Sweden iyo magaranaysaa oo ogeyn hadda ka hor waxaa dhacday isal cajaa'ib loo waxaa dhacday Swedishka ku dhacday markab sida maraakiibtan quuso ee badda hoosteeda ku jira oo nuclear sida ayaa hadda ka hor wuxuu kasoo dhex baxay badda Sweden dhexdeeda kasoo dhex baxay Stockholm agteeda marka soo yiri marka Scandinavian kuna adaa ku watay Scandinavian kuna inta badan waaba iska hurdaan waxaa la yiri dagaal iyo adduunka wala ka socdaan aad iyo aad waagi marka soo kacday markaad aragto markabkii oo duriyada siday oo gurigeeda hor taagan waa mucjiso kala soo moogay marka ku degdegi maayaan ayaan isleeyahay arrintan laakiin jarmalka iyo talyaanigu maxay ka yiraahdeen arrintan ku saabsan cunaqabataynta gaar ahaan nidaamka lacagaha caalamka lagu kala la iskugu xawilo ee Swift la yiraahdo maxay ka yiraahdeen arrintaas way ka hor yimaadeen jarmalka talyaaniga Austria arrintaas hoos baa la dhigay miiska hoostiisa la dhigay sheekadii Swiftiga hadda ma socoto cunaqabataynadii kale u baa socda maahe arrintaas ma socoto sababtoo ah dhaqaale fara badan ayaa kaga kala xiran dalalkaas marka wax macquul ah maaha inay ayagii isma dhaawac hadda saliidii waa cirka isku shareerto gaaskii ruushka imana cirku isku shareer wuu laba jibaarmi waa dareemi karaysaa culayska dhaqaale ee ay wadamadan ku tahay ingiriiska hadda waad ogtahay gaasku cirkaasuu marayaa jarmalka ka daran marka arrintaas waxay keenaysaa
caabuq dhaqaale oo aad iyo aad u ballaaran aad iyo aad u ballaaran waayahay haddaan u gudubno qaybta soomaalida iyo ukraine xiriir dheer ayay leeyihiin arday badan baa joogtaa la yiri ciidamadii militariga soomaaliya ay tababari jirtay maxaan kala soconnaa xiriirkaas soomaaliya iyo ukraine u dhexeeya dadka soomaalida jooga maxaa la gudboon waase maxay gruubkan ciidankan cutubkan ciidanka ukraine ka tirsan sida gaarka u tababaran ee magaca soomaaliya loogu magac daray maxay yihiin maxaram cashaar kala soo xirataa waa yaabanaay tababarka ay qabaan kuwan isuma dhowa waa ukraine kooxdan waa ukraine waa laakiin waa qaybta maaragtay kasoo horjeeda xukuumadda hadda kiif ka talisa sideedana saad aduguba u sheegtay ukraine ciidamadeena ayaa lagu tababari jiray saraakiisha soomaalida inta badan ukraine baa lagu tababaray odesa waa caan soomaalida caan bay ka tahay raggii odesa kasoo wada baxaa jooga marka runtii waxay laba siyaabadoodba soomaalida way ku barteen waa midoo arday fara badanoo meesha wax ku baratay ciidan fara badanoo meesha lagu tababaray soomaaliya yimaadeen dadku ciidamada ku tababari jireen kadibna 77 markii dagaalka xabashada aan fooda istarnay dhinac kale u wareegeen marka qaabka soomaalida u dagaalantay si fiican ay u yaqaanaan waxay yidhahdaan soomaalidu waa niman arxalaawayaal ah hadday dagaal tagto waa niman aan mataqaanaa dulujeeska aqoon marka saasaa guutada loogu magac daray mataqaanaa manaxayaasha la yidhaahdaa guutada soomaaliya manaxayaasha la yidhahda marka nimanku waa niman taariikhdeena ina yaqaano soomaalidu waxay tahay aad u yaqaana nimankan reer galbeedka aqoon fiican nooma laha mogta laakiin ruushka waa isla soo caana maalno muddo ayuu mataqaanaa waxaad aragtay ciidankeena hadday tahay ciidanka cirka hadday tahay ciidanka dhulka ciidanka badda waxaan asagaa carbiyo tababaray oo ciidamadii sida sahalka ah etoobiya ku dardaree la ogaa asaga ayaa keenay marka saasaa ciidamada ma naxayn inaanay naxaynin ayaa soomaaliya loo bixiyey cutubka soomaaliya loo bixiyey gartaa haddii aanu eegno haatan dagaalku siduu u socdo waxaanu ognahay dhaawac iyo dhimasho inuu jiro yaad is leedahay hadda dhaawaca ugu badan wuu soo gaaray markaad eegtid dagaalkii shalay mar ee ruushka uu qaaday oo weli socda hadday ahaan lahayd dagaalka badda uu ka qaaday oo maraakiibta baddu ay madaafiicda garaacaysay diyaarad hadday ahaan lahayd iyo dhulkaba saddexdaas ayuu ka weeraray waxaana muuqata inuu dominate gareeyey hawada ukraine dhaawacaanu ma la odhan karaa wuxuu u badan yahay ukraine horta markaan xagga militariga si ka fiiriyo marka dagaal la qaado jugta hore dhaawacyadu inta badan ninka weerarka cidda weerarka ayay ku dhacdaa inta badan oo waa wax iska caadiya militariga waana lagu talagalaaho ciidamada markii dagaal loo diraayo boqolkiiba tira waxa la ilaa 30 inay markaana xufta hore ay ka leefto waa wax dhaca inta badan balse kaartada hadda uu ruushku ku dagaalamaya haddaad u fiirsato kaartadiisu waxa weeye marka hore horta dhangadee ule madaxa ka garaac hawada ka garaac isgaarsiinta raadaarada baabi'i waxyaabaha ugu horreeya la sameynaya waxa weeye in raadaarada la baabi'iyo si aanay diyaaradahaagu ay si xor ah ay maarata hawada ugu dhex mushaaxaan meesha ay rabaanna ay garaacaan marka waxaan isleeyahay shaqadaas ayaa hadda socota dagaalku waa maalintii labaad weli hawadii ma wada xoraynin maanta waxay sheegteen saakay ukraine waxay sheegtay inay diyaarad soo rideen waa wax dhici kara way soo ridi karayaan diyaarado waxaan rabaa inaan xasuusiyo daawadayaasha xasuusiyo ciraaq markii lala dagaalamaya xuftii horeba dhowr diyaaradood oo maraykanku leeyahay dhulka lasoo dhiga marka way dhacaysaa laakiin dagaalku suu maalinta labaad maalinta saddexaad maalinta afar soo gaaraba waa la aamusin doonaa mataqaanaa qalabka isgaarsiinta iyo raadaarada hawada ilaalinaya waa la aamusin doonaa waana u sahlanaan doontaa ruushku xufta horese waa laga yaabaa dhaawac fara badan iyo dhimashaba inay xagga ruushka lafsee jirto secretary generalka neto ayaa dhowaan hadlay dhaqdaqyadii lasoo dhaafay intaan tale barnaamijkan ku jirnay ayuu hadlay waxa uuna leeyahay wax walba oo aanu ku difaaci karno xornimada ukraine waanu qaadaynaa tilaabo walbaba tilaabooyinka qaadi karta neto maxaa ka mid ah oo ilaa haatan aysan qaadanin dagaalku maalintii labaad maray runtii secretary generalku waxa weeye
united nationku madax ka yahay waa nin inuu siyaasadda loo baahay inuu ka dhexdhexaad neto baan sheegaya neto sheegaysaa oh sorry ninka nato waa nin aad iyo aad xag jir u ah hadalladiisa haddaad dhegaysato wax uu daafici karana aniga meesha igama muuqato aad buu caraysan yahay ciidamo ayaa hadda lagu daabulaya Poland iyo waxay leeyihiin mataqaanaa garabka bari in la xoojiyo waa Poland iyo Romania iyo in dhinaca la xoojiyo su-aashu waxay tahay wadamadaas raalli ma ka yihiin in ciidamo xoog la sii geeyo anigu wadanka la yiraahdo Poland iyo Czech Republic waa laga yaabaa inay aqbalaan in ciidamo dheeraada iyo hub dheeraada iyo gataalo dheeraadaba la geeyo balse wax absida ugu weynay wadamadaas haysataa waxay tahay gantaaladii loo yaqaano mataqaana middle ridada dhexe gantaalada ridada dhexe oo xad dhaafa ayuu ruushku meesha keenay halkaan xadka yurubta bari keenay marka cabsidu ayagay xaggoodaba ku badan tahay oo maanta hadduu ruushku dabco caasimadoodu ka dhigi karaa tan hadda huban tan uusan kula isticmaalin ayuu la dhici karaya marka adigu general secretary-ga nato wax hadda dariiqa oo u furan oo ruushka lagu challenge garayn kara anigu ma arko ruushku wuxuu ku guulaystay hawadii Ukraine inuu xiro baddana ka xiro waa labada meelood ugu muhiimsan dhulka dhulka u furanna hadday berri ama saa dambe ama asbuucan ciidamadiisu way tegayaan xadka Poland taas shaki kama taagna inuu geliyo rabaa ciidamada ruushkuna hadday xadka Poland iyo Romania ay tagaan ayaga mataqaanaa caafimaadkooda uusan fiicnaanaynba iyo nabad meesha ku joogayn dadku waa isyaqaanaan reer yurub horta waa isyaqaanaanoo ruushku waa dad qallafsan hadday dagaal iyo dhibaatadaas gaarto waa dad aad u qallafsan waana raf waxaa lagu tilmaamaa cossacks qabaa'iladii ruushka dagaalyahanada cossacks loo yaqaano weeyo waa niman aad iyo aad raf u ah oo wax meesha ay galaan waa meel la galay وهاجاك waxay kale oo aad iyo aad u caraysan oo saameyn weyn ku yeeshay dagaalkan dalka Turkiga iyo madaxweyne Tayyip Recep Erdogan waa maxay Tayyip Recep Erdogan waxa uu ka caraysan yahay dagaalkan uu sababay Erdogan aad buu uga caraysay Erdogan markiisii horeba aad buu uga soo horjeeday waxa uu ruushku Crimea ka sameeyay Cabdixaafidow wadankan lagu leeyahay Ukraine hadda ka hor waxay ka mid ahayd saldanadii Cusmaaniyiinta ka mid ahayd dhulkii Turkigu qabsadayay ka mid ahayd qabaa'iladan tartaarka iyo lagu leeyahay degan maartay Ukraine waa degan yihiin Crimea ayaga majority u ah dad muslim weeye dad Turki ah weeye asalkooda Turki ka soo jeedo xiriir qaas ah ayaa Turkigu la leeyahay Ukraine oo runtii hatta hadda ayaantii dhawato NATO ay ka carartay Turkigu wuu hubeynayay ودافعوda cirka iyo dhulkaba aad buu door uga qaatay maanta laakiin Turkigu NATO ka mid yahay xiriir fiican oo dhaqaalana ruushku la leeyahay oo dhinacaas haddaad ka eegto xiriir buu ka leeyahay laakiin siyaasadda waa ku kala tageen erayo kulul inuu yidhaahdana ma aha oo si kulul ula hadleen awalna wuu lahayd Erdogan ninka badan ma aha madaxweyne Erdogan waa nin hal adayg leh waa nin waxa uu rabo si toos ah u abbaara nin leexleexdo arrinta siyaasadeeyana ma aha arrintan Ukraine iyo ruushka iyo asagu aad bay ugu kala fogaayeen markii horeba haddana waa ku kala fog yihiin haddii ay dhacdo wado xaggan dhaqaalaha iyo baybki maadaama dhulkii la joojiyey Nord Streamka Jarmalka xagga waqooyiga ka soo geli lahayd tan waxaa socota South Streamka la dhisayaa hadda fursad cusub weeye Turkiga laftiisa u tahay in dhaqaalaha marka Yurub ay isku dhex yaacdo in uu mataqaanaa isagoo hadda dhaqaalihiisu aad iyo aad u daciifay oo liiradii baa aad u dhacday dhulka gashay dhaqaalahu soo kaba uu u baahan yahay marka dagaalku fursado wataa isaga laftiisu oo dagaalku khasaare kaliya ma aha laakiin fursado wataa maxaa laga filan karaa dagaalkan weji noocee inuu yeesho maalmaha iyo saacadaha soo socda haddii la yidhahdo waxaan isleeyahay dagaalkan cashar buu noqon doonaa casharkuu noqonaya waxa weeye ruushka in lagu tixgeliyo inuu awood jirta bariga Yurub iyo mataqaanaa waqooyiga Yurub awood jirta oo wixii mataqaanaa amni ku saabsan lala xisaabtamo inuu noqdo lala heshiiyo wax meel lala dhigto inuu noqdo ay ka soo bixi doontaan isleeyahay ruushka waa la ignore gareeyey waddan aad u weyn weeye awood leh waan ku celcelinaya waddan aad u weyn
oo 19 milyan oo square kilometer weyn oo waddanka caalamka ugu weyn waddan ahaan waddan la dhayarsan kara maahan waddan nuclear ah weeye oo mataqaanaa super power ah wuxuu ka faa'iidi doonaa arrinta tan laba mid inuu mataqaanaa waxay noqon doontaa inuu ka faa'iido oo reer galbeedku ay mataqaanaa sidii qof dad ay siman yihiin ula xaajoodaan oo sida ay yasayaan ay meesha ka saaraan waa arrinta ugu stressaya in la yasayo oo maaragtay layska hawl maalmeedka layska wata asagana wax laga weydiinaynin horta taas wuu ka faa'iidi karaa wuu khasaari karaa oo wuxuu ku khasaari karaa dagaal daba dheeraada inuu Ukraine la galo waxaan rabaa inaan daawadayaasha xusuusiyo qiimaha iyo qaayaha leh Ukraine waa waddanka Yurub ugu weyn marka Ruushka laga reebo Ukraine waxay la egtahay Jarmalka iyo France oo la isku daray baaxadaas waa dareemi kartaa waa aad Scandinavianka ilaa iyo Mediterranean Sea inta u dhaxaysa weeye Faransiiska iyo hadday isku dartay marka waa dhul intaa la eg qabsashadiisu waa laga yaabaa inuu qabsashada hore ay sahlanaato laakiin haysashadiisu wax sahlan maaha waa inuu qasab waxa ku inuu isla markiiba ciidamada kala baxo haddii kale uu ku jabaya kolay wixii la soo kordha waa halkaan toos ula socnaa daawadeen waxaad daawanaysaan barnaamijkaanu ku falanqeynayna dagaalka ruushka iyo ukraine u dhexeeya neto hadaladii ugu dambeysay aanu idiin soo gudbinay madaxweyne biden hadalkiisii waa maqlayseen iyo dadkii reer Ukraine oo qaxaya markii ugu horeysay bal mar kale aan tusno dadka Soomaaliyeed ee dib nooga soo biiray waa markii ugu horeysay ee 75 sano dagaal gacanta la isugu tagay oo Yurub ka bilowday waa kan shacabka reer Ukraine oo qaxaya destination Poland And as you can hear, there are shots fired into the air at that train station in the Ukrainian capital as people try in their hundreds to board trains leaving Kiev, ostensibly for the west. As we see at the moment, there is talk that people are trying to head to Lviv and even beyond. The Polish certainly preparing themselves for a refugee influx across their border. In fact, reports saying that refugees from Ukraine and indeed other countries continuing to arrive at a border crossing. وحقاق muuqaalkaas arkaysaan waa magaalada madaxda dalka Ukraine Kiev oo laga kala yaacay dadka yaacay hadda eegtaan waxay u badan yihiin dad xoog leh maatadii intii badnayd waa laga soo tagay diyaaraduna waa duqeynayaan xaalku ma sahlana injineer soo dhawow aad iyo aad waxaan rabi lahaa inaan daawadayaasha wax yar xagga diblomaasiyadda horta failure of diplomacy ayaa horta meesha ka dhacday dagaalkan waxa keenay sidiisaba waxa weeye iyadoo lagu guul daraystay wixii la dhihi jiray diblomaasiyadda waxaa jirtay ruushka iyo wadamadan anglo-saxonka weligood ba isku dhib qabaan horta waxaan ka wadaa waa ingiriiska iyo maraykanka iyo isma fahmaan xagga siyaasadda isku meel kama heesaan waxaa jirtay marka sanadihii 70-aadii ayay waxay Jarmalku abuureen dhaqan siyaasadeed oo cusub oo la dhihi jiray Ostpolitik ama East Politics waxa siyaasaddaas aabbo u ahaa nin la oran jiray qabiil ahay la oran jiray Willy Brandt oo Jarmalka kansler ka soo noqday iyo xogayihiisii secretary-giisii Egon Bahr nimankaas ayaa kaartada jeexay kaartadu haddaba maxay ahayd kaartadan waxay ahayd in cadaawad kastoo la isu qabo si kastoo ruushkuna Jarmalku bar haysta markaa si kastoo dhib la isku qabo haddana in la wada hadlo la wada xaajoodo oo la isku danaystaa inay muhiim tahay ayay Jarmalku markiiba garteen waxay garteen maadaama dadkoodii qayb ka mid a caburiska ruushka ay ku dhex jiraan oo la haysto in ay qasab tahay in ay Soviet Unionkii la xaaltamaan markaasay kaartadan la yidhaahdo Ostpolitik ama waxaa loo yaqaana Entspannungspolitik siyaasadda dejinta in la dejiyo xasaradda la dejiyo ayay abuureen siyaasaddaas ayaa lagu soo caanamaalay ilaa burburkii ma garanaysaa Soviet Union siyaasaddii waxay ahayd wadaxaajoodkii adkaa markii nuclearka hubka ah la keenay Yurub ta galbeed oo Maraykanku keenay
asaguna bahladii la dhihi jiray SS20 oo geeyey East Europe dhigay lagu kala xalliyey oo lagu dejiyey oo la yiri xataa beec mastarka hal is dhaafsado oo hal kala faa'iideysto iyadoo col leeyahay oo siyaasadda aad ugu kala fog yahay haddana waxay ka mid tahay isku soo nadaamka isku soo dhaweynta iyo abuurka isfaham siyaasadda in la abuuro oo wixii qaab diblomaasiyad loo dhigo siyaasaddaas waxaa ka dhalatay in ma garanaysaa ciidamadii la kala qabsada la isu celiyo waxaa ka dhalatay in niman basaasiin badan oo waxaa jirtay east west aad loo ka fashilmo la qabsado in la isu wada celiyo in ma garanaysaa xiriir fiican la sameeyo in isfaham ka dhasho hadda ruushkii ayaa horta Soviet Union ka soo haray ruushkii iyo waxaa muuqata reer galbeedka khaasatan nimankan Anglo-Saxonka inaanay isfahmaynin inaanay isku beej ka hadlaynin inays isku waxay u arkayaan Ingiriiska iyo Mareykanka ruushku wax macno weyn looma arkaan aqoontooda yar aqoonta ay ruushka u leeyihiin baa yar aragtidooda gaaban oo ruushka uma arkaan ruushku waa bahal waxaa la yidhahdaa jarmalku waxay yidhahdaan osterbeer waa beer beerka la yidhaha weynanka badan aragtay waa bahalkaasaa la yidhahdaa oo barafka dhex jiifa yaa la isku soo kacay haddaad isku soo kacso hadda wixii ku gaara adaa ka mas-uula jarmalku si fiican bay u yaqaana sida ruushka loola macaamiltamo taas weeye tan haddaba maanta lagu feelgaroobay waxay u baahan yihiin maanta reer yurub in ay siyaasad cusub oo ruushka lagula xaaltamo amniga yurubna loo sugo cabdixaafid oo qodob kale rabi lahaa yurub amnigeedu caalamka dhan buu muhiim u yahay yurub waxa weeye waa hoygii dhaqaalaha caalamka waa hoygii aqoonta caalamka waa hoygii mataqaanaa wax lagu kala waday marka 350 milyan oo dadaha degan waa meesha yar weeyo afrika rubuceed aan dhammayn marka inay nabad iyo deganaansho heshaa yurub cid kasta faa'iido ku jirta caalamka dhan bay faa'iido ku jirta marka in la helo siyaasad degan oo ruushka lagu xadido asagana lagula xaaltamo waa wax muhiim ah qodobkaas reer meesha ku darbo hagaag daawadayaal waxaad daawanaysaan Brit Somali TV iyo wararkii ugu dambeeyay arrinta dagaalka ruushka iyo u dhaxeeya Ukraine iyo waliba xulafada Mareykanka oo hogaaminayo NATO wixii ku soo kordha barnaamij wararkan waan idin la socodsiinaa maalin walbana barnaamijyo joogta ayaan ka sameynaa waxaan jecelahay inuu mahad celiyo injineer Axmed Abtidoon oo kamid ah dadka sida waaweyn arrimahan u falanqeeyay iyo waliba siyaasadda Soomaaliya oo barnaamijka qayb naga lahaa idinka daawanayay intaanu kan oo kala dib u kulmi doono waliyo gobonimo ay kaga tagayna Soomaaliya diida ceeb naftiina ka dhowracay waa mahadsantii